kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qaybtanna waxaynu ku eegi doonaa aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin waajibaadkii qaranka wixii shalay aad u dhaarateen mas'uuliyaddii aad u qaadeen umadiina mas'uuliyaddii aad u qaadeen qarankiina mas'uuliyaddii aad u qaadeen dalkiina madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo jeneraal Odawa Yuusuf Raage amray in uu diyaariyo ciidankii qaban lahaa Ceergaabo wararkii ugu dambeysay abaabul dagaal oo saddex dhinac ah oo ka soconaya Ceergaabo ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa Puntland ciidankii ugu faraha badnaa ayay geenaysaa xadka ay la wadaagto maamulka Somaliland waqooyi bari ciidamada ay iyana daadgureynayaan Somaliland Hargeysa ay ciidan ka soo daadgureynaysaa xiisadan cusub ee halka ka soo oloshay iyo waxa sababta u ah xilligan ku soo beegay Djibouti oo hubkii ugu faraha badnaa geesay qaybo ka mid ah gobolka Awdal wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee halkaas ka soconaya wafdigii ugu horeeyay ee Somaliland oo gaari doona dhawaan Talaabiib xilliga ay baxayaan wafdiga inta ay ka koobnaanayaan wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan ayaynu si guud ugu eegi doonaa intaynu ku guda jirno baahinteena qaybtan oo ah wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka iyo dhacdooyinkii degdeg ahaa ee 24 saac ugu dambeysay ka dhacay geeyiga Soomaaliyeed oo aan halkan idin kula wadaagi doono haddii ay idin tahay markii idinku horeysay uu idin soo gaaro YouTube-keena channelka fadlan subscribe saarta oo rukunta si ay idinku soo dhacaan wararka warbixinada muuqaalada xasaasiga ah ee aan halkan markasta aan idinku soo baahino hagaag aan ku bilaabo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odawa Yuusuf Raage waxa uu amray in uu diyaariyo ciidankii qaban lahaa Ceergaabo oo ay abaabulka qabashadeeda ka socoto magaalada Laascaanood ee xarunta u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faray taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay diyaariyaan guutooyin ciidan ah oo hubkooda wata isla markaana ay wehelinayaan gaadiidkooda dagaalka iyo diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca iyo kuwa military ee isticmaalaan wuxuuna sheegay in madaxweynaha Soomaaliya xilligan looga baahan yahay in loo soo jeesto ka hortagga isballaarinta Israa'iil ay doonayso in deegaano ka mid ah maamulkaasi ay ku abuurto ciidan iyagu taabacsan oo deegaanadaasi laga qorayo sidaan xogta kol hore halkan aan idinku baahiyaba ay sheegaysay Villa Soomaaliya ayaa si dhow la socota dhaqdhaqaaqyada ka soconaya Hargeysa waxaase markan talaabada loo qaadayo ee dhinaca militariga ah ee dawladda ee qabashada Ceergaabo ay ka dhignaan doontaa in Somaliland halkaasi ay kaga mashquulaan siyaasadda dhinaca dibadda ku qotanta iyo xiriirka Israa'iil ee imikan ay sida tooska ula sameysay xoguhu waxay tilmaamayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu amray in dhalinyaro laga qoro deegaanadaasi isla markaana waxa hadda ay u dhaqaaqayaan ciidanka qaranka inay tahay difaac qaran iyo hawl qaran oo aysan ahayn wax sahlan isla markaana looga baahan yahay in siday tahay ay u fuliyaan madaxweynaha ayaa amarka uu dul dhigay jeneraal Odawa Yuusuf Raage kadib waxa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga uu hogaamiye Axmed Macalin Fiqi imikan ay diyaarinayaan qorshaha ciidankaas lagu gaarsiin lahaa magaalada Laascaanood maalmaha soo socda diyaarado nooca dagaalka ayaa Muqdisho ka daadgureyn doona waxaana sidii roobkii oo kale loogu daadin doona amaba ay uga degi doonaan magaalada Laascaanood kadibna halkaas ayay kaga gudbi doonaan fadhiga ugu weyn ee qabashada Ceergaabo Laascaanood ayaa laga maamuli doonaa madaxweynaha maamulkaasi Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye ayaana la faray inuu u diyaar garoobo hirgelinta qorshahan isla markaana uu kabo ciidanka militariga Soomaaliya ee uu hogaaminayo jeneraal Odawa Yuusuf Raage ee ku wajahan Laascaanood isla markaana u dhaqaaqi doona qabashada Ceergaabo danna ay xigi doonto deegaano kale oo ay maamulaan ciidamada maamulka Somaliland hase ahaatee shacabka halka ku nool ay taageerada midnimada Soomaaliya ay muujinayaan oo ay gabi ahaanba diideen in gooni u goosad ay noqdaan xogtu waxay tilmaamaysaa oo soo baxaysa in ciidankan lagu diyaarinayo Muqdisho dhaqaalaha ku baxaya si la mid ah agabka military ay isticmaalayaan ay bixinayso dawladda Turkiga ee Soomaaliya taageerta dhinacyo badanna ka taageeraysa isla markaana heshiis difaac kula jirto oo 10 sano ballan qaadayna dhawaan inay garab taagan tahay dawladda federaalka Soomaaliya kana hortagi doonto tallaabo kasta oo waxyeeleyn karta midnimada Soomaaliya in Muqdisho laga diyaariyo qabashada Ceergaabo waxay soo dedejin doontaa in maamulka uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro
ay u soo dhaqaaqaan dhabad dagaal isla markaana ay suurtagal tahay in ciidamada Somaliland ay ku jabaan halkaasi waxaana ay noqon doontaa taariikh mugdi ah oo diiwaanka u gasha hogaamintiisa Cabdiraxmaan Cirro oo sababteeda leeyahay in xiriir uu la sameystay Yuhuudda geesta kale wararka soo baxay waxay sheegayaan in Puntland iyana ay bilowday in ciidamo ay ka daadgurayso Garowe iyo Boosaaso iyo kuwa kale oo ku jiray furmaha hore ee dagaalka ee la dagaalamaya Daesh oo qorshu yahay in iyana ay u dhaqaaqaan qabashada Ceergaabo oo ay doonayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga hormaraan waxa kale oo jirta in abaabul kale oo ciidan ay Somaliland ay diyaarisay oo la xiriira in iyana ay doonayso inay xigsadaan si aan looga qaban gacan ku haynta Ceergaabo oo ay rumaysan tahay Somaliland in deegaankeedu uu ka tirsan yahay haddii halka laga qabsadana ay soo wajihi karto culays dhinaca amniga iyo mid dhaqaale oo dhan kasta leh oo marka la eegana dagaalkan ay sababi karto sida xugu ay tilmaamayaan in taageerayaal hor leh iyo saaxiibo imikan garab u Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha maamulka Somaliland ay gabi ahaanba faarujiyaan garabkiisa abaabulkan saddex geesood weeye dhinacna dowladda ayaa kabayso oo laasacaanood ayaa laga diyaarinaya midna Garowe ayaa laga diyaarinaya oo Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa wararku ay sheegayaan inuu u dhaqaaqayo dhabo uu ku difaacayo Puntland maadaama qararadii dhawaan lagu wareejiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ee booqashada ku yimid toddobaadkan magaalada Hargeysa ay muujinayso in Garowe iyo Boosaaso ay ka mid tahay dhulka Somaliland isla markaana ay u aqoonsan yihiin in Somaliland ay ka madax banaanta Soomaaliya inta laga waxna diiwaanka halkaas qararadda lagu soo gudbiyay si adag kaga falceliyay madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdilaahi Dani oo kulan degdeg ah isugu yeeray dhammaan talisyada hay'adaha ammaanka maamulkaasi oo uu faray in difaac Puntland oo lagu soo duulay u diyaar garoobay waxa jirta kol hore inuu ka gaabsaday ka hadlida qadiyadda Soomaaliya ee Israa'iil soo faragelisay balse markii la soo farageliyay arrimaha deegaanada Puntland ayuu Saciid Cabdilaahi Dani guud ahaan hurdadii ladi waayay wuxuuna sababay in uu amarro waaweyn u dul dhigo madaxda hay'adaha ammaanka maamulkaas oo uu faray inay u diyaar garoobaan si guud difaac qaran waxa uu yeeray Somaliland waxa la sheegay in dhaqaaqyadan iyana il gaar ah ay ku hayso oo ay doonayso in halka ay difaacato waxaana wararku ay sheegayaan in saacadii ugu dambeeyay ciidamo kala duwan oo ka kala tagay Laasacaanood Garowe Boosaaso iyo Hargeysa ay isugu tageen dhinaca Ceergaabo markan waxay la ciirciiraysaa ciidamo siyaasad ahaan isdiidan oo dhinac kale uu ku loolamayo in gacanta guud ahaan magaaladaasi uu la wareego waxa jirta in jabhada kale oo halkaasi ka asaasmay oo midnimo doona iyana ay culays weyn saarayaan ciidamada maamulkaasi ee u jooga magaaladaasi geesta kale hadii aynu eegnana madaxweynaha dowladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu hubkii ugu faraha badnaa uu siiyay ciidamo jabhad ah oo ku sugan qaybo kamid ah gobolka Awdal oo uu ku doonayo in ay isaga dulqaadaan maamulka Somaliland tan markii uu xumaaday xiriirka u dhaxeeyay Djibouti iyo Somaliland waxa soo degdegay in ay Somaliland ay si toos ah u qaado talaabooyin aan farxad gelinaynin Djibouti waxay qaaday talaabooyin iyana cabsi amni ku abuuraya dhinaca maamulka Somaliland xuduudihii ay wadaageen labada dhinac ayaa gabi ahaanba Djibouti ay xirtay waxaana hubkii ugu faraha badnaa ay ku daadgureynaysaa gobolka Awdal waxaana ay Djibouti isu taagtay in ay dhisto maamulka Awdal oo ka madax banaananaya kan uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cirro ee Somaliland sidii loo dhisay maamulka waqooyi bari ayay doonayaan bulshada gobolka Awdal in state iyana loo dhiso xubno u ololeeya in state ay noqoto Awdal state ayaa maalmihii ugu dambeysay Djibouti Muqdisho ku kala sugnaa halkaas oo taageero lixaad leh ay ka helayeen waxa jirta in tan markii ay soo ifbaxday waxa loogu yeeray aqoonsiga ay Somaliland ka heshay Israa'iil ay jireen casuumaad daba joog ah oo ay helayaan odayaasha dhaqanka gobolka Awdal xubnaha u dhaqaaqa midnimada ee gobolkaasi ku sugan gaar ahaan kuwoodii dhawaan bandhigii waalida ahaa ka sameeyay magaalada Boorame isla markaana si adag u diiday hogaanka maamulka Somaliland oo halkaasi ciidamo ka tirsan Somaliland ay xasuuq ka geysteen
waxaa la rumaysan yahay in Jabuuti carro hore ay ku jirto oo ah in la hor istaagay soo bandhigida xeer ciise ay keentay in iyana iminkan fursadda bannaanaatay ee sababta xiriirka Israa'iil loo sameeyo Somaliland ay ka faa'iideysanayso oo cadaadis dhinaca militariga ah ay saarayso si kastaba ha ahaatee magaalada Boorama waxaa iminkan laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan tuhun iyo kala shaki xooggan ayaa soo kala dhaxgalay xubno ka tirsan maamulka xubno ku matala baarlamaanka golaha wakiilada Somaliland ee ku sugan qaybo ka mid ah Boorame waxaa si jirtay in dhalinyaro ka tirsan kuwa deegaanka oo calanka Falastiin watay ee diidana qadiyadda Soomaaliya taageeray ee ka soo horjeestay arinta Israa'iil ay ugu aqoonsatay Somaliland inay tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale oo ay xabsiga u taxaabeen caradaas waxay soo dadejisay in xubno ku baxay halka ay wali ku sugan yihiin oo ay ka biidiidsan yihiin inay dib ugu laabtaan Hargeysa waxaase la rumaysan yahay in tani ay iyana dusha ka riixayaan maalmaha soo aadan warar waaweyn ayaa ka soo ifbixi kara gobolka Awdal oo iminkan u muuqanaya mid u dhaqaaqay dhabaha dhismaha maamul si toos ah oo istagaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya haddii gacantiisu ay ka baxdo gobolkan Awdal Cabdiraxmaan Cirro waxaa diiwaanka u gali doonta taariikh mugdi ah oo laga diiwaan galiyay madaxweynihii isaga talada kaga horeeyay ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo gabi ahaanba ku fashilmay in gacantiisa uu ku sii hayo deegaanada goboladii la isu oran jiray SSC balse markii dambe dawladda federaalka maamulka ay u dhistay loogu magac daray waqooyi bariga Soomaaliya ilaa gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaartay daawado kaga mahad celinaya nabadgelyo